wafdi isugu jira wasiiro iyo xildhibaano ka socda golaha guurtida Somaliland iyo waliba maamulka gobolka Selel ayaa kormeer ku soo maray meelaha ay dhibaatada abaartu aad u saameysay. wafdigani ayaa ujeedadiisu tahay kuurgalka dadka ay abaarahani barakiciyeen iyo sidii loogu ururin lahaa meel cayiman. Abdullaahi Faarax Meedhane oo ah wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jamhuuriyadda Somaliland oo isagu wafdigani hogaaminayay ayaa waxa uu nooga waramay waxyaabaha ay soo arkeen isaga oo ku sugan magaalada Jidhi ee degmada Saylac. halka yaala imika xoolihii xareeyay baa imika tagtaagan ragii uu ka maqan yahay in way socotay intii maatay dhaqaaqi wadina u taagan ilaa iyo Xuseen ilaa iyo maxaan ku raaka Karuure ilaa iyo maxaan ku rahay markaad ka soo beerto ceel helay markaad ka soo bilowdo dadku shaabu isku daba yaala waxana ugu sii darani meelba meesha ka sokaysay xeebta marka laga soo baxana kuleylka halka uu ku haystaa kuleylkii baan isaguna soo gaaray xoolahana xanuun baa jira wasaaradda xanaanada xoolaha waxaan leenahay arilaha ka yaabo ya gurmadkiina loo fadhiyaa waana leeyni sugayaa caafimaadka dadkii oo kuwa jadeeca haysa jirto sida maartay iyagii haddana war jadeecadan kala qaadayna ileeyeen baa jirta. sidoo kale xildhibaan Axmed Daahir Jirde oo ka tirsan golaha guurtida Jamhuuriyadda Somaliland iyo barasaabka gobolka Selel mudane Farxaan Xasan Cabdi oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa ay yiraahdeen dadka aad arkaysaan waa dadkii xooluhu ka dhamaadeen cayroobay oo la soo ururiyay oo halka la dajiyay maanta waxay u baahan yihiin horta gacanta Allah aamin ilaahayow gacantaada ilaahayow dadka wax marlabaadka waxaan leenahay qurba joogta Somaliland wixii islaama iyo wixii gaalaba wadadka aad arkaysaan xoolihii iyo ubadkoogii way ka arkayeen way ka soo farabaxeen halkaas ay ku soo urureen si degdeg ah wax loo soo gaadhaan leh hadal way dhaaftay maanta way ka indhiina wax ku arkay waxaanu arkaynay taanu soo soconay dad badan oo kala lumay caruurtii xoolihii iyo dadkii waaweynaa oo kala lumay waxa kale oo ka codsanaynaa dadkii diasporada iyo halkan u dhashay ee deegaanadan u dhashay gobolada Selel iyo Awdal in ay la soo gaaraan dadkan wixii ay u soo tari karaan way inaga indhihiinaad ku arkaysaan waxa weeyaan halka cidada bay degan yihiin ma hayaan waxay hoy ka dhigtaan ma hayaan waxay maxaa la raacayada kaga gabadaan. Maxamed Cawaale Daahir Radio Hargeysa magaalada Saylac.